الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد wada noolaanshaha weeye tacaayushku say wada noolaan karaan masaalixda guud oo ka dhaxaysa dad muslimiin ah iyo dad gaala ah. marka u horeysa marka tacaayush la yiraahdo kelimada carabiga ama Soomaaliya la Soomaaliyeeyo oo la yiraahdo wada noolaansho in la wada noolaado baa diintu qabtaa. dadka qaar baa xoogaa macno qalad geliyay oo saska qaba oo macnaha u qaatay marka laga hadlaayo wada noolaanshaha iyo nabadgelyo wada noolaanshaha iyo wax kala bedelashada in macnaheedu yahay qofku intaanu hadalka soo qaadin inuu diintiisii ama aqoontiisii uu ka tanaasulayo ama qayb kamid ah uu maaragtay baylahinayo oo uu ka tegayo. macnuhu saas ma aha macna islaamiya مصالح أي وداعان دتك بني آدم كجودهان إلهي سبحانه وتعالى أصل كود واحد كيه قرآن كريم كأهنا ويكون عضهاي أي وداعان باجر قرآن كريم كأحمد والبنا قرب التوجيهية سنة واسطة سوكر. بالمثال هذان إذا المام قرآن كريم كواحد بدن كأركيسان إلهي سبحانه وتعالى مركو هذا الكوجي دينه يدتك iyo ahkaamta ama waanooyinka laba khitaab oo ah ya ayuha alladhina aamanu iyo ya ayuha an-nas. ya ayuha alladhina aamanu hadalku ku socdaa kuwa ilaahay rumeeyay iimaanka laga helay. ya ayuha an-nas marka la yiraahdana dhammaan ilma aadan oo dhan buu ku socdaa gaal iyo muslim. sidaas oo kale waxaad arkaysaa qul lil mu'miniina ya oo macnaheedu yahay mu'miniinta xukunka asaasiga sidaas oo sheeg. ama waxaad arkaysaa qulu lin naasi maxay tahay caam مثلا qulu lin naasi husnan ya hada wanaagsan dadka ha marka taas waa qodobka labaad macaamilka muslimiinta iyo gaalada laba nooc buu noqdaa. mar waxa weeye meel muslimiintu ay ku badan yihiin gaaladu ku yar yihiin oo gaaladu iyagu la nool yihiin muslimiinta ahkaam bay leedahay. mar waxa weeye muslimiinta ayaa yar oo meesha hadda halku dhaga yani muhaadaradu ahayd ama nadwadu oo ah al aqaliyat bali al muslim ahkaam gaar ay leedahay iyaduna waxaa ka badan gaaladii waxaa bay xayar muslimiintii oo ku dhex nool gaalada mid walba xukunkeedu leeyahay. mararka qaarkood waxaa dhaca dagaal muslimiinta iyo gaalada dhexdooda ah ahkaam buu leeyahay. marna nabadgelyo ahkaam gaar ah bay leedahay kutubta fiqhi way tafsiilisay ma aha sida aniga doono ma aha. gaalka laftigiisa muslimiinta la nool ama ay wada nool yihiin isaga laftigiisu isku heer ma aha ahkaam kala duwan buu leeyahay. mar waa xarbi dagaal kala dhaxeeyo oo meedaanka aad dhufayska isugu jirtaan oo meedaanku dagaalamaysaan oo ila aragta idinka dhaxayso. mar waa mustaamin waa mid adiga ku magan galay. mar waa muaahid waa mid ahdi iyo ballan iyo idin kula jira ya. mar waa dhimmi waa mid muslimiinta ku hoos nool xukunkooda ku hoos nool oo yani maaragtay ahkaam muayana leh. marka isaga laftigiisu sida haduu sheekhu sheegay ahkaam muayana oo badan buu leeyahay taasna in la ogaado.